waa barnaamij gaar ah oo aan ugu hadli doono taariikhdii diblomaasiga weynaa ee Shariif Salah Maxamed Ali oo ahaa diblomaasi iyo siyaasi mug ku dhex lahaa siyaasadda dalkeena ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii magacooda iyo raadkooda ugu tagay siyaasadda Soomaalida. Waxa uu ahaa siyaasi magac ka sameeyay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasaddii dowladda rayidka iyo weliba tii kacaankii oo hogaaminayay Sarreeye Guud Maxamed Siyaad Barre. Waxaa aad loogu garasho ogaa aabihii agoonta ee dalkeena Soomaaliya. Shariif Salah Maxamed Ali waxa uu xilladii 1936 ku dhashay magaalada Xudur. Dugsigii ugu horeeyay ee Xudur ayuuna ka qayb galay, halkaasi ayuuna waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ku qaatay, isagoo sidoo kale macallin ka soo noqday iskuuladii ugu horeeyay ee magaalada laga furo. Kadib ayaa Shariif Salah waxa uu waxbarasho u tagay dalka Talyaaniga oo ku soo bartay culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Xurnimadii dalka kadib sanadkii 1963 ilaa 1965 waxa uu Shariifku ka soo shaqeeyay safaaraddii Masar ee dalkeena Soomaaliya. Waxa kale oo Shariifka dowladdii rayidka ahayd ee dalkeena ka soo noqday agaasimihii maamulka ee wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha. Sanadkii 1971 ilaa sanadkii 1972 xilligii dowladdii kacaanka waxa uu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. 1974 ayaa Shariif Salah loo magacaabay wasiirka Hidaha iyo Tacliinta Sare ee dalkeena. Waxa uu xilkani hayay tan iyo sanadkii 1976, isagoo sidoo kalena noqday gudoomiyihii guddiga qorista farta Soomaaliga. Shariif Salah Maxamed Ali ayaa intaasi kadib ka mid noqday golihii dhexe xisbigii talada hayay dalka ee Hanti Wadaaga. Diblomaasigan weyne ee reer Xudurka ah ayaa mar kale sanadihii 1978 ilaa iyo sanadkii 1981 ahna safiirka Soomaaliya u fadhiyo dalka Talyaaniga. 1981 ilaa 1984 loo magacaabay safiirka safaaradda dalkeena Soomaaliya uu ku lahaa dalka China. Diblomaasigan reer Xudurka ah loo magacaabay safiirka safaaradda dalkeena uu ku lahaa dalka Ingiriiska, xilkaasi oo uu hayay sanadihii 1985 ilaa iyo sanadkii 1988. Kadib Ambassador Shariif Salah Maxamed Ali waxa uu ku soo noqday dalkeena isagoo noqday gudoomiyihii guddiga arrimaha dibadda ee dalka iyo sidoo kale burburkii kadib oo uu noqday gudoomiyihii ururada bulshada ee dalkeena. Sidoo kale Ambassadorku qoraal buugaag badan qoray iyo cilmi bare. Buugta uu qoray Shariifku waxa uu ka mid ahaa buugga Xudur iyo taariikhda Koonfurta Soomaaliya. Siyaasigan ruuga cadaaga ah siyaasadana ka sameeyay magaca sumcad ayaa 21 bishii 3 2014 ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya. Halkaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa taariikhdii aynu ku fiirinaynay Shariif Salah Maxamed Ali.